niyahow waa dhownahay biyo daad si fiican aan noo soo galay hatee gabar noo foolanaysa hatee meel aan marinaa weyne gacmihiyaa loo qabtay gacmihii hatee dhiiqada ku dhacdhaceyna ayadoo saas ay tahay alaamiga agtiisa la geeyaa dhikala lagu saaraa sidii isbitaalkii lagu geeyay alxamdulilah deer way dhashay gurigeeda hatee qaab loo soo celiyaa lalaaya 48 saac la soo dhaafay roobab xoogan oo ka da'ayay daafaha iyo gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sababay in uu karkarada jabsado iyo xireenka caasimadda waxaana wadooyinka magaalada hirqiyay daadad xoogan oo hakad geliyay isu socodka dadka iyo gaadiidka daadadkan ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha boqolaal qoys oo danyar ah kuwaasi oo guriyihii ay deganayeen ka barakacay halka ay sidoo kale jiraan kuwa aysan duruufuhu u saamixin inay ka baxaan guryahooda maasha Allah horta walaalow wuxuu Ilaahay keenay in lagu mahdiyo horta wanaagsan marka ugu horeyso waa u jeedaan laga sheekeynayo dadweynaha sida wax u arki doonaan indhahooda way qaban doontaa dadkan waa dad barakacyaal ah ee iskugu jiraan dad meel badan ka wada imaadeen alxamdulillah Ilaahay mahadiisa wixii shalay Ilaahay keenay waa wax oo ummadan isha ay ku wada haysay oo meel walba ay ka da'een haddana waa u jeedeen burburka farada badan oo meeshan ka muuqdo biyooyin fara badan waa soo aragteen fasahaad badan oo meeshan ay ka goosteen oo ay soo mareen magaalada qaarkeed ay dhinac ka saameysan haddana alxamdulillah waa u jeedino sida wax u jiraan indhiina waxba kama qarsano ha sax walaalkaygi oo muxuma hadalkaaga su'aasha ay weydiisana waa macnaha su'aal aad u muhiimsan waana taa ka filan inay weydiisid waa saxan tahay meeshan dhibaatada nagu haystaa waxay tahay fasahaadii biyihii meeshii ay ka soo goosana waa meel inuu dhow oo si weyn inuu dhow yihiin waxaa ka mid ah daadadkii inta badan ka yimaadaan toogtan tripkii ka horreeyay waxyaabo badan iyo dhibaatooyin badan way noo geysteen hadday noqoto guriyihii qaarkeed oo nolol maalmeedka guriyihii iskaga qixin xitaa ayaga xitaa inay biyihii ay qaarkeed ay barakiciyeen annaga iska badaa mooshka aan degnan misna aan ku jirnay marka walaalkayga waa u jeedaa waxa meeshan hadda lisdhihi karo misna waa la qarinaa meeshan maysan muuqdan wallaahi maasha Allah biyaha khayr Ilaahay keeno waaye ma fahantay waxaan ka tirsanaa kaam Shabeelle wallaahi biyaha barobar waxa u maleynaa tog inay soo fakteeno biyaha zaid noo saameeyay aan jecelahay alxamdulillah hadan Ilaahay ma had iskale wallaahi bil alxamdulillah biyaha zaid oo noo saameeyay hadana naruur Ilaahay keena ku nasane dadka waxaan ka midnahay kaam Shabeelle ku nool ka midnahay shal roobka imaaday ciyaalkii wixii dhan maxaa la biyo saaidaan nagu imaaday dadka iyo dariska dad qaar hataa maxaa la dariskeen nool yihiin la joogan xaafadihii ugu badnaan hataa dadka xaafadaha deganayeen sidoo kale biyo u galay dhiiqo iyo waxa waaye biyo tiro badan oo meel la kala geynay ilaa hadartan xaafadaha hataa biyo laga soo daldala saasay taa hataa ciyaalkii iyo dadkii ayaga kor nool yihiin ka bacda hadan markii ay ka baxeen biyo hadar oo ay baxeen dadkii sidooda waa iskaga soo laabteen ilaa qof meel degan qof kale ma kor saarnaa karo marka waxaan codsanaynaa hay'adaha wax qabad kale iyo intii wax tar kale inay noo imaadaan wax noo qabtaan niyahow waa dhownahay biyo daad si fiican aan noo soo galay hatee gabar noo foolanaysa hatee meel aan marinaa weyne gacmihiyaa loo qabtay gacmihii hatee dhiiqada ku dhacdhaceyna ayadoo saas ay tahay alaamiga agtiisa la geeyaa dhikala lagu saaraa sidii isbitaalkii lagu geeyay alxamdulilah deer way dhashay gurigeeda hatee qaab loo soo celiyaa lalaaya gabadha foosha qabata kolleytaba gacmahan ka qabanayo meeshii magaciisa laamiga geeyna ilmihiina kolleytaba dadka deriska u xanaaneynoyin hadeer meel la soo mariyana malahan ilmo yaryarna way ka maqan tahay ilmaheedana waa u baahan yihiin marka wadada si aadna waxaan u baahneen horta kaamkeena inaa oona noo hagaajiyo guryihii iyo waxyaalahaas inoona noo sasaxo hadda guryihii bacyana ma saarno dadkii halkan deganaa meelahay ku qalqaxeen oo guryaha dadka oo guryaha meelaha oo hoogaa taagtaaga saaranaya lagu kala aruuro kolleyta waa la saaranyaa xildhibaan Ismaaciil Nuunow waxa uu qayb ka yahay mas'uuliyiinta kaamkan Arlaadi waxa uuna ka warramayaa xaaladda dhabta ah ee ka jirta kaamkan iyo sida ay u saameysay daadadkii ku dhiftay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug bismillaah waxaan joognaa Arlaadi markaan ku bilaabo magacayga xildhibaan Ismaaciil Mukhtaar Nuunow bulshada kaam Arlaadi la nool xaaladii habeen hore ay maartay saameynta oo roobka ku yeeshay especially deegaankan xaafadan Arlaadi iyo kaamkan dadka intooda ugu badan macnaha waxay roobku wuxuu ku dhaliyay markii la seexday kadib baa roob noo yimid adiga waxa waaye waxaan deganahay meel biyo mareen ah marka waa taqaanaa waqtigu roobka bilowday oo la seexday adiga 9 saac dadkii oo dhan nin walba wuxuu kor u istaagay waa la wada taagnaa inta uu waaga ka barinayo kaamka sida u jeedid biyaha muuqdo oo hadir ku muuqdo
balliyo noqday biyihiina biyo mareen waaye waa laga qaxay meeshii markaasi oo loo maartay lagu nasan karaa unbaa laga aaday xagga xoogaa yar oo biyaha nasteen unbaa meeshii wixii looga tagtagay unbaa lasoo kormeeray sida xaaladda noqotay waad dareemi kartaa dad reer tabarood ah oo meesha ay joogaan oo ay ku nool yihiin aysan awood weyn ama difaac weyn ama aysan u haysan waxaa haddeer noogu darnaa markii roobka da'ay gabar fool qabatay oo kale ayaa aad noogu darneed gabadhaas oo aan gaari meesha soo geli waayey ama bajaaj ama gaari weyn xataa uu soo awoodi waayey inuu soo galo ay noqotay in maaragtay la daandaansho oo garbaha laga qabto oo niman ragaa inta saas u waxaystaan oo ay qaadaan gabadhii sidii isbitaalkii in lagu geeyo marka xaaladdu noogu darneed oo markaas nagu dhacday waxay ahayd oo saameynta roobka nagu yeeshay nin xayahoo markaas alaabtiisii garabka saaran kara waxaa noogu darnaa midii gabadhii foosho qabatay baa noogu darneed alxamdulilah gabadhii way dhashay laakiin saameyn weyn adoo deegaan meel ku ah inaad ka qaxdid saameyn weyn bay nagu yeelatay oo haddana tabar kale gaar ah oo dhinaca cunaha iyo waxaa ku haya waxyaalo badan oo sida caafimaadkoo kale cabdifataax yuusuf beereed warbaahinta Shabeelle Dhuusmareb